wanaagsan dhammaan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeeni iftiinshe laba warbixinta maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa saameynta manhajta kala duwan ay ku leeyihiin ardayda xalqadan waxbarashada waxaynu kaga warrami doonaa maadaama oo dhalinyarada iyo ardayda maanta waxbaranaysa ay yihiin mustaqbalkii berito iyo kuwii dalkan iyo dadkan bahanan lahaa in aynu ogaano saameyn intee leeg ayaa manhajta kala duwan ay ku leeyihiin ababinta ardaydaasi warbixintiina waa tan soo socota ee ka bogasho fiican. Somaliland oo ah dal hadda jira 25 sanadood marka loo eegayo xilligii burburka wixii ka dambeeyay waxa dhacay in dhammaan kaabayaashii noloshu ay burbureen. Kaabayaashii uu burburka ugu culus la soo darsay waxa kamid ah waxbarashada oo markii dalka dib loogu soo noqday laga soo bilaabay salka iyo in dib loo yabyabo. marka laga yimaado dhismayaasha goobihii waxbarasho ee burburay waxa meesha ka baxay manhajkii waxbarasho ee la raacayay taasina waxay dhashay inay abuurmaan manhaj kala duwan oo dalal dibadda laga soo qaatay sida Sacuudiga, Bahrain, Yemen, Suudaan, Masar, Kenya, Ingiriiska, Mareykanka, Tanzania, Uganda iyo qaar kale oo badan. wasaaradda waxbarashada waxay isku dayday waqtiga aynu dalka ku soo noqonay bal haddana ubadka la ururiyo oo meelo gidaaro dhexdooda oo daasado iyo dhagaxaan ay ku fadhiistaan in ay ma ogtahay lagu ururiyo si meelada meel walba daadsan magaalooyinka looga badbaadiyo. runtii waxay ahayd marxalad aad iyo aad u adag. macallimiin loo hayeynay markaa ma jirin cid allaala ciddii la isleeyahay caruurta halkaa way hor joogsan kartaa ayaa ma ogtahay loo wasaaradda waxbarashada u yeedhay oo ay si ay bal hadda halkaa ugu hayaan oo ku ururiyaan si ay miinada iyo waxa uga badbaadiyaan khaasatan magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo magaalooyinka way sii kala darnaayeen. markaas waxbarashadeedu bilaabantay waxay ku bilaabantay qaabkaan idinka sheekeeyay. isla markiiba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay isku dayday bal hadda ubadkaas sidii loogu sameyn lahaa manhaj waxbarasho oo ay raacaan si loo ilaaliyo taxanihii waxbarashada. marka muqarrar ku meel gaar ah baan u sameynay berigii hore 94-95 ayaan u sameynay iskuulaadka si ay muqarrarka bal hadda u ilaaliyaan. muqarrarkaas oo lagu bilaabay markaynu dalka ka soo noqonay galaaska afraad ayaa lagala soo noqday qaxootigii. galaaska afraad ee lagala soo noqday qaxootigii iyo kuwa kale ee halkan loogu bilaabay gidaarada dhexdooda lagu ururiyay gidaarkana loo rinjiyeeyay si ay moogta waxbarashadooda la sii socdaan. waxa ay ka baxeen fasalka 8aad 2006-2007 waxaan leeyahay 96-97 ayay ka baxeen eerkii ugu horreeyay dalka. waxaana dugsiyadii ay u kala baxeen kuwa dawliya iyo kuwa gaar loo leeyahay. kuwaasi gaarka loo leeyahay ayaa iyaguna waxay u sii kala baxeen qaybo kala duwan. manhajtan kala duwani waxa ay saameyn ku yeeshaan ardayda. horta manhajku waxa la yiraahdaa waa qalab ay ummadu u adeegsato si ay jiilkeeda iyo mustaqbalkeeda ay u jahayso ama wada ay u jeexdo si jiilkeeda iyo mustaqbalkeeda ay uga hagto ummadaas halkii doonaysa inay gaadho iyo waxay u socoto. saameynta yeelanaysa wax weeyaan ardaygii ku noolaa dalkan ee reer Somaliland ahaa marka uu dhigto manhaj dal kale uu leeyahay oo baahida dal kale ka turjumaya midda u horeysa horta mushkiladda ku keenaysa wax weeyaan ardaygaas horta in uu iswaayo ama uu garan waayo isagu cid uu yahay cid uu dhashay. saameynta kale ku yeelata wax weeyaan dugsiyada sare markay ardaydu ka soo baxaan jaamacadaha inta badan ayaa la isugu yimaadaa. kii Suudaaniga ku soo bartay, kii Kenyaanka ku soo bartay, kii Carabiga ku soo bartay, Sacuudiga intaas oo dhan waxay isugu yimaanayaan jaamacadda. ardaydii jaamacadda markay isugu yimaadaan 4 sano ama 3 sano ee jaamacadda waxa laga yaabaa ardaygii inay kaga dhacdo inuu la qabsado dadkan kale oo dhex yimid. waxa laga yaabaa afka jaamacadda lagu dhigayo inta badan waa Ingiriisi. waxa laga yaabaa qofkii af kale ku soo dhigtay ama manhaj kale soo dhigtay inay adkaatay inuu la qabsado jaamacadda oo 3 sano ama 4 sano ee jaamacadda ku jiray
waqtigii kaga dhaco intii uu la falgalayo waxa weeyaan ardaydan iyo la qabsigoodii iyo macallinkii iyo sidii wax u socdaan inuu waqtigii kaga dhaco deeta ardaygii marka uu soo baxo isaga oo aan wixii ay ahayd inuu jaamacadda ku soo dhigto aan ku soo dhigan taasi waa qodob qodobka labaad ee keenaysa waxa weeyaan manhajku wuxuu ummadda tusiyaa ama ardayda uu tusinayaa khayraadkay leeyihiin deegaankooda taariikhdooda juqraafi ahaan magaalooyinkooda waxaasoo dhan buu barayaa cadowgooda saaxiibkooda waxaasoo dhan buu manhajku barayaa marka ardaygii markuu manhaj kale uu soo barto waxa laga yaabaa marka inuu garan waayo isagu muxuu leeyahay resources ama khayraad dalkiisa muxuu leeyahay sidoo uga faa'iideysan karo sidoo uga fikir karo sidoo uu horumarin karo maxaa waxa weeyaan horyaal ee ay tahay inuu ka faa'iideysto haday taariikhdiisii noqoto haday sooyaalkiisii noqoto haday juqraafigii deegaankii wixii oo dhan waxa weeyaan ardaygii in uu ka faa'iideyn kari waayo ama uu garan kari waayo wixii uu lahaa ayay keenaysaa oo ay ugu horeysa marka ay jaamacadda galayaan iyadoo culayskuna uu ka imanayo afafka kala duwan ee manaahijtani ay ku qoran yihiin waa kuwan qaar ka mid ah ardayda hadda jaamacadda dhigata oo markoodii hore manaahij kala duwan wax ku soo bartay manhajkii dugsiga hoose de wuxuu ahaa kan Somaliland iminkaba la qaato af Soomaaliga kii dhexe iyo kii dugsiga sarena waxay ahaayeen manhaj wadanka Sacuudiga laga leeyahay oo buugta aanu dhigano iyo manhajkaygu dhamaantii wuxuu ku salaysnaa maadooyinkii iyo wixii lagu dhigan jiray dalkaasi Sacuudiga marka buugtoodan akhrisan jirnay halkaas wax ku baran jirnay manhaj marka wadanka Sacuudiga ka soo jeeda oo laga leeyahay buu ahaa kan jaamacadda aan ku dhigtana waa manhaj wadanka Itoobiya oo aynu jaar ka nahay waayo jaamacaddu waa branch Addis Ababa ku taala teeda xarunteedu Addis Ababa ku taala halkan branch bay ku leedahay Hargeysa marka ka baanu iminkana dhiganaa manhaj Itoobiya laga leeyahay manhaj jaamacadda dugsigii hoose manhajku wuxuu ahaa manhaj Kenyaati ah dugsigii dhexena la mid oo wuxuu ahaa isna manhaj Kenyaati ah dugsigii sare oo aan ka bedeshay iskuulkii markaa aan dhiganayay isna manhajkiisu wuxuu ahaa manhaj Somaliland marka manaahijtu waxay ahayd manaahij kala duwan markay iyagoo ku wada baxayay English haddana waxaad moodaysaa maadaama laba iskuul oo kala duwan ay isku manhaj isticmaalayeen haddana inay ahaayeen laba manhaj oo aad u kala duwan runtii haddii aan wax ka taabto manhajkii aan ku soo qaatay dugsigaygii hoose ilaa kaygiisa dhexe wuxuu ahaa Soomaali ilaa kii hoose ilaa kii dhexe dugsi dhexe maantaan ka baxayay ayuun baan u soo galay manhajka Englishta manhajta kala duwan ee aad soo qaatay maxay saameyn noloshaada de wax kasto wax ku barato ama luqadaha kala gedisan wax ku barato kullay faa'iido way wad ka helaysaa oo ugu yaraan de luqadihii kala gedisanaa baad wax ka baranaysaa cilum kala gedisan ku dhiganaysaa laakiin si guud markaad u eegto oo qiimeyso saameyntood ay ugu yeesheen manhajta kala gedisan wax ku soo bartay intii aan wax baranayay waxaad moodaa in khalkhal xaqii manhajka uu jiray وتصل هان مرنا سومالي wax ku dhiganay oo wax gaar ah dhiganay mar kale aan wadanka Sacuudiga iyo wax dal kale oo gaar ah uu leeyahay aan baranay oo luqad kale oo Carabiga wax ku baranay mar kale oo jaamacadii aan ku jiray hadana aan manhaj kale oo isna kii hore ka wada gedisan aan ku dhigan marka wax madan khalkhal marka qofku manhajta kala gedisan ee aadka u kala fog wax ku qaato oo waliba inta wax baranayo wax ku qaato inuu khalkhal ku dhacayo oo aad mar badda jiho u kacayso manhajta kala duwan marka dhinac laga eego waan dareensanaa in maadaama xagga Englishka iyo xoog ay saarayeen in xagga Englishka ay ka dhisayaan kaana ay faa'iido ku soo celinaysa adiga maadaama arday aad tahay arday hiigsanaya jaamacadda ka bacdina de laga yaabo ardayga inuu dibadda u baxo dhinaca luqadda marka la eego in ardaygii faa'iido weyn oo uga imanayso taasoo faa'iidada ugu weyn ee ka imanaysa manhajta Englishka ku dhisan xagga taariikhda iyo geographiga iyo waxyaabaha noocaas marka la eego waxaad moodaa manhajtii ka duwanaa ee inooga imanayay manhajyadan manhaj wadanka ka baxsan inuu yahay inuu manhajkaasi xooga saarayo manhajka wadankii laga lahaa in uu saarayo xooga oo kaaga waramayo history ahaan haddii la eego taariikh ahaan taariikhdii wadanka manhajka laga lahaa
geographiga haddii la eego inuu kaaga warramayo dhulalkii waddankaasi gaarka ahaa manhajkaasi runtii aniga gaar ahaan haddii aan iska hadlo qofku marka uu luuqadiisii ku soo qaato maxay tahay manhajkii uu maxay tahay ku soo baranayay dugsigiisii hoose ilaa kiisii dhexe markuu secondary u gudbana uu English u galo wax badan baa maxay tahay saameyn kugu yeelan kartaa waxa ka mid ah language-kii English-kii oo markii hore aad wax ku soo qaadan inaad markaa level-kii soo gaadho secondary ama dugsi sare inay caqabad kugu noqon karto luuqaddu oo taasi ay kugu yeelan karto saameyntaasoo noqon karta luuqaddii Soomaaliga aad ku soo qaadanaysay iyo language English aad markaa u galaysay macallimiinta laftooda ayaa manaahijtan kala duwan ay saameyn ku leeyihiin صفة من صفات الأنبياء صفوين أي ليهين نبيدو وإلهي سبحانه وتعالى كتل مامي تانا وحابك وقفلا دعودي دميدا إلهي سبحانه وتعالى أديبي دباتوين كاي كلا كل ميين waxaana jira macallimiin dhiga manaahij kala duwan kuwaasi oo lagu dhigto dugsiyada dalka ka jira haddaan horta wax ka sheega manaahijta aan anigu dhigo hadda iminka waxaan dhigaa manhajka Somaliland baan dhigaa laakiin waxaa jirtay waqtiyo badan oo aan soo dhigay manaahij kala duwan oo wadamo kala duwan ay dejisteen tusaale ahaan manhajka iyo muqarraraadka Sacuudiga waan dhigay badan oo kamid ah maadooyin badan oo kamid ah muqarraraad kale oo aan carabi ahayn oo luqadda Ingiriisiga ku baxaya ana waan dhigay sida manhajka Tanzania kadalika Kenya maaragtay muqarraraad iyo manhaj Mareykanka ah intaaba hortay kulli intaan iminka ka xasuusto wax waan ka dhigaa waayahay cabdi saaqad ma santahay sidaad runtii Allah ybarik fiik kaliya waxaan doonayaan ku weydiiyay marka adiga ka macallin ahaan culays intee lag bay kugu haysay manaahijta kala duwan runtii ama dareen intee lag baad ka qaadanaysaa waxaad la daalaa-dhacaysaa bal sidii aad u xallin lahayd muqarrarkan iyo manhajkan waddanka aanu lahayn sidii aad u xallin lahayd eed u waafajin lahayd diiniyan iyo dhaqankii iyo maaragtay waddankanigu u lahaaba marka maalan tusaalayaasha sawirrada oo kale marka kuu soo qaadanayo ama maaragtay magacyada goobaha kuu soo qaadanayo waxaad isku dayaysaa inaad bal ardaygii ka dhaadhiciso inaad kan ka beddesho oo aad markaa ku kalo waddankiya aad markaa waxa weeyaan aad ugu salayso waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid ah weliba manaahijta markaa waxa weeyaan dee Afrikada sida Kenyaanka maaragtay Tanzaniyaanka waxyaabahan ku arkay waxaa ka mid ah maalan luqadda Ingiriisiga oo kale markaad ka soo qaado waxaad arkaysaa waxyaabo badan oo eraya ah oo laga yaabo eraya iska loo kala waddankii laga garanayo laakiin wax dee luqadii asalka ahayd ama Ingiriisiga u ahayd aan markaa waxa weeyaan ka mid ahayn dadna iska laga soo qaadanayo dadna dubaad u noqonaysaa erigii baad baaraysaa dictionary-gaad ka eegaysaa waad baarbaaraysaa macnaa waxa ku ama waxaad dareemaysaa miisaankiisaba inaanu Ingiriisi ahayn haddaba daawade maxaa ka dhalan kara ama laga dhaxlayaa marka ardayga reer Somaliland loo dhigayo manaahij wadamo kale ay leeyihiin ardayda soo baxaysa wax weeyaan arday Somaliland ku wada nool oo isku magaalo ka yimi oo isku xaafad laga yaabo oo qaarkood isku qoys yihiin laakiin mid waliba uu sido ama uu xambaarsan yahay fikirka manhajka uu ku soo barbaaray waxay keenaysaa arday ku nool Somaliland on meelna uga bixin laakiin aan garanayn Somaliland waxay tahay resourceska ay leedahay iyo kheyraadka ay leedahay iyo waxay ka faa'iideysan karaan wuxuu keenayaa arday ku nool Hargeysa ama Burco ama Laascaanood ama Boorama oo aan wax weeyaan awood u lahayn inay sharaxi karaan sooyaalkii ummadooda iyo taariikhdooda wuxuu keenayaa oo uu saameyntu keenayaa ay tahay in la helo arday aan dalka ka bixin oo Hargeysa iyo Laascaanood iyo Burco iyo Berbera iyo Boorama ku nool laakiin xambaarsan oo ka jawaabaya oo u fikiraya dalalka ay manaahijtooda ku soo dhigteen ama Suudaan ha ahaato ama Kenya ha ahaato ama Ingiriis ha ahaado ama Ethiopia ha ahaado ama meel kale ha ahaatee arday buu keenayaa marka aan wax weeyaan aan dhulkoodii joogin
haddana joogta oo u fikiraysa dhul kale oo aanay joogin manhajkan iyo muqararkan waddankan loo dejistay waddan kastaa wuxuu ku salaynayaa diinta uu aaminsan yahay akhlaaqiyaadkiisa dhaqankiisa waxaa ku jirta oo kale ahdaaf iyo ujeedooyin kale oo ay ka leeyihiin dadka oo ay doonayaan inay geliyaan ama ha ahaadaan markaa waxa weeya siyaasad waddaniyad ah ama ha ahaadaan siyaasad markaa waxa weeyaan dee xukuumadda waddankaa ka talinaysaba markaa inay dee laga dhaadhiciya ha ahaado markaa tii dee inagu markaynu manhajkii soo qaadanay sidii unbay markaa waxa weeye inoogu soo gashay markaa kaana in markaan maraykan ardaygii u dhigayno in dee aynu dee waddaniyadii maraykan ka dhaadhicinayno iyo wixii dhaqanka u ahaa haddaynu kenya ka hadlayna sidaas oo kale manhajkeenii somalilan isagu de waa kii aynu u baahnayn dee nala jaan qaadayo inala ma garanaysaa aan u baahnayn inuu markaa dee ardaygeennii ugu sheegaynay waxaynu dee waa ardaygii noocmaa baan doonaynaa inaynu soo saarno waa kale muhiimadda ay leedahay in la helo manhaj midaysan oo ardaydu ay dhigtaan wuxuu xal u yahay in ardaydu ay ka baxaan kala duwanaanshaha waxbarasho iyo manhajiyad ee wadamada kale laga soo waariday waxaana arrintan ka markhaati ah saluuga ugu weyn aan muujinayo iyo cabashada aan isleeyahay waxa muhiim in wax laga qabto waxa weeye dee anugu dalkan aan u dhashay somaliland baan u dhashay qof soomaali ah baan ahay marka waxay ahayd ba asalka hore inaan manhaj midaysan min laga soo bilaabo fasalka ugu horeeya ee iskuulka ilaa iyo intaan qofku ka dhammaynayo waxbarashada waxay inaan helo manhaj diyaarsan oo haddii alla ku roon yahay loogu talagalay qof aniga oo kale ah oo dalka u dhashay oo ku salaysan waddanka iyo waaqican la noolahay halkii aan dee baran lahaa wadamo kale dhaqamadooda iyo haddii la ku roon yahay taariikhdooda iyo dhulkoodu noocuu yahay waayo markaan dhiganayay manaahijta kala gedisaneed ama tusaale ahaan dugsiga sare kaan ku dhiganayay waddanka sacuudiga dee waxun baan iska ahaa qof sacuudi ah laakiin halkan ku dhaqan oo sacuudiga dhaqankiisii iyo inta saxaree ku yaala iyo haddii la ku roon yahay boqortooyada ka jirta iyo qaabkay u qaabaysan tahay iyo waxyaaba noocaas oo sacuudiga khaas u ah oo arday sacuudiga inuu barto loogu talagalay baan dhiganaya marka waxaan isleeyahay saluuga ugu weyn waxa weeye waxaa meesha ka maqnaa manhaj midaysan oo loogu talagalay inuu soo saaro qof reer somaliland ama arday reer somaliland xilka wax ka qabashada iyo nidaaminta manaahijtu wuxuu dusha ka saaran yahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo iyada oo in badan looga fadhiyay inay wax ka qabato arrintan manaahijta kala duwan ee dalka lagu dhigayo waxaana jirta wax u xil saaran hawlaha manaahijta weeye dalka hal manhaj oo keliya ayaa ka sharci ah waxaa ka sharci ah manhajka wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu tala gashay dugsiyada sare iyo hoose dhexe ee dalka manhaj kale oo halkan ka shaqaynaya ma jiro way dhici kartaa in luqada lagu gudbinayo manhajka ay kala duwanaato laakiinse hal manhaj oo kaimika aan idin tusaayay ah hadduu dugsi sare yahay iyo hadduu dugsi hoose dhexe yahay kaasunbaa waddankan ka shaqayn kara ee qaranku leeyahay ee wasaaradda waxbarashada ay mas-uulka uga tahay dugsiyada gaarka ah iyo kuwa dawliga aba mid kale oo halkan ka shaqayn karaa ma jiro oo dalku uu leeyahay kaasuun buu leeyahay kuwa kale oo dhamme ahayd ma ogtahay amaahda dee mar haddii loo sameeyey manhajkii oo dib eegis lagu sameeyey oo lagu saleeyey waxbarashada caalamka ah inuu la tartamo oo lagu dhereeriyey oo aqoon-yahanada reer Somaliland ee maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin kumanaanka gaaraya ay ka qayb qaateen dejintiisa mid dabadeed lama baahna dugsiyada gaarka ahina waa inay kaa raacaan hadday yihiin hoose dhexe iyo hadday yihiin saraba waa inay kaa raacaan kuwa dawligaana iyada waaba qasab beelay ku yihiin waxaa intaa soo raacda waxaan xataa u diyaarinaan iminka idiin sheegayay buugtii dugsiyada hoose dhexe gacantaa lagu hayaa aqoon-yahanada reer Somaliland baa gacanta ku haya kuwii dugsiyada sare iyaga waqtigan aan idinla hadlaayo waxaabay ku dhow yihiin dhammaystir maado kastaba ayay ku dhow yihiin
inuu buugaag aada u tayo leh oo ma ogtahay aada looga shaqeeyey oo maanta ubadkeenna dugsiyada sare ku jira ay ku baahi bixi karaan kaga baahi bixi karaan buug la-aantii haysatay ayaa maanta inoo diyaar garoobaya